xilli dhowaan roobabka guga ay ka curteen deegaano badan oo Soomaaliya ah gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa roobab dabeelo wato saacadihii la soo dhaafay ay ka da'een tuulada Congo ee duleedka magaalada Jowhar waxa ayna burburiyeen in ka badan 200 oo guri oo tuuladaasi ku yiilay kuwa oo u badnaa guryaha ka samaysan jiingadaha iyo aqal Soomaaliga waxaana burburka guryahaasi ay dhaawacyo ka soo gaareen dadkii deganaa guryahaasi wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka degmada Jowhar ayaa iyana maanta gaaray tuulada Congo oo ay ka da'een roobabka dabeelaha wata qaar ka mid ah dadkii ay guryahooda dabeelaha roobabka la socday ay burburiyeen ayaa warbaahinta u sheegay sida ay wax u dhaceen dad wax ku gaareen dadna hadee waa ka cayntoona Ilaahay waa ka bixiyay annaga guryahana ku burburay iyo dariskayga ya inta islaamho iyo dhaweedba waa ka burburan guryuhu aniga waa u daranayo waa oo kolay guri xumahay waa u burbur badanahay ilaahaas ama hadaas u sugan tahay dadka waxay wax u gaareen sida ay sheegeen in kastoona anugu tagin koongaha barina waa burburay koongahaas dambana waa burburay la sheegayaa aniga ma tagin laakiin dhaawac laga sheegayaa wax ayna ma helo aniga ma tagin gurigaygan la ooyay oo la kufayo la kacay ila adees wasaqdeed iyo qurunkayga isaga dhex jira xalay banaankaasaan ku hoyday ilaahay subxaanahu qaadirkaahina waa igu bariyay habar waayeelaan ahay masaakiin wax meel keensi karin gurigana waa igu soo quboohaya intaas in la galo oo asxaan ii soo bisiinaan raba guriyaha in rabbaga subxaanahu qaadirka rooba dumi ana mudulkeedu waa soo quboohaya biyaha ka da'aya coosna ma haastay bacna ma haastay badarna ma haasto beerna iima baxa waana jirinahay duufaan oo roob wata ayaa dumisay ilaa 250 guri waa dun dad dhaawac ku gaaray oo isbitaalada la geeyay oo ilaa hadda dhaawac waa jiraan oo u baahan daryeel lugaha ilaa madaxa kulli wax dhibaato culus ayaa gaartay Ilaahay ayaana ka qaadi kara bilaadan wax u qaadi kara laamiir ayaa jeexay alwaax maanta waxaan u soo baxnay inaan idila qaybsano dhibaatada ka dhacday shalay toole ee ahaa duufaankii ama dabayshii xooga badneed ee inta guriga ah maanta la soo koobi karin dhibaatada gaartay inaan maartay idila qaybsano oo aan idin dhahno Allah subhanahu wa ta'ala aan u toobakeenno dhibaatadana Ilaahay un baa naga bixi karo marka waa dhibaato aad u weyn indhaheena way arkaan sida uu sheegay waxaan soo aragnay haween banaan tuuran caruur banaan tuuran rag banaan tuuran guryahoodina ay dunsan yihiin marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay raali ka noqdo bili aadan Ilaahay dharji karo laakiin dadkan inta karaamkiina ah wax la qaban kara dadkan in loo qabto dhalinyarta odayaasha degan kulli qurba joogta waxaan ugu baaqaa inaysan waxba ka kala reeban ee ma aragtay waxay awoodaan ee u soo diraan insha Allah taala laakiin ka waran guryihii oo maanta ay ka buubeen oo meel la seexday aysan jirin oo bacrinkan oo banaanka aad u jeedaan ma aragtay dadka wada jiifanayeen marka waxaan idin rajaynaynaa inaad ma aragtay sidan Soomaalida ugu baranay gaar ahaan dadka soo jeeda Hirshabeelle ee u soo gurmadaan ay soo caawadayaan jasaakumullahu khayr Ismaaciil Abdulla Sabriye Universal TV Jowhar